Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada daawadayaal, kusoo dhawaada channelkiina Umada channelka haddii aad ku cusubtahay subscribe saar, gambararka fiidiyodan like saar, u share gar asxaabtaada iyo familygaaga. Maanta waxaynu joognaa wadanka Sacuudi Arabiya, khaasatan magaalada Daif. Sanadihii 2001 ilaa 2006 waxaa jiray qiso qabsatay wadanka Sacuudiga iyo guud ahaanba Carabta oo dhan. Waxaa jiray nin la yiraahdo Abu Khalid waxa uu ahaa nin aad loogu kalsoon yahay oo dadka maasha Allah amaanadaadka u xafida. Wuxuu ahaa nin shaqaysta reerna leh. Abu Khalid waxa uu ku noolaa magaaladaas, waxa uuna ka ahaa nin aad looga jecel yahay. Wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo bangiga magaalada Daif. Bangigani waxa uu ahaa bangi ka caana magaalada Daif, waxaana lahaa reer tijaar ah. Ilaahay ayaa qaniye. Waxa dhacday sida uu hadba boos uga gudbayay in uu ugu dambeyn noqday gudoomiyaha faraca bangiga ee magaalada Daif. Maalin maalmaha ka mid ah, sida caadadu tahay wadamada Islaamka, ayaa marka salaada la gaaro bangiyada waa la xiraa. Waxay ku beegnayd salaadii duhur. Abu Khalid ayaa waxa dhacday in markii ay shaqaalihii bangigii xidheen, maadaama iyagu jamaaco ku tukanayeen bangiga gudihiisa, ayaa waxay maqleen garaac. Markii garaacay eegeenna waa haweeney wejiga uu qarsoon yahay. Way ka furi waayeenoo waxay ugu sheegeen ishaarooyin iyo gacanta in hadeer la xidhay, hadhowna ay furayaan. Laakiin ma ahayn mid maqlaysa oo waxay ahayd mid xoog u garaacaysa ilaa ugu dambeyntii gudoomiyihii soo baxay, maadaama uu ka arkay kaameradihii dibadda haweeneydan xoog u garaacaysa. Wuxuu yidhi bal hadda soo daaya. Haweeneydii baa la soo daayay. Waxay tiri waan degdegsanahay, waxaan ahay haweeney ganacsata ah, waxaanan doonayaa in jeeg la sarrifo. Abu Khalid wuxuu yidhi haye iska fadhiiso halkaa. Waa tukadeen. Bacdayn gabadhii ayaa waxay iska qaaday indha shareerkii ay sidatay. Maasha Allah, waa gabadh Ilaahay qurux u dhameeyay. Abu Khalidna markiiba qalbigeedii bay gashay. Wuxuu yidhi maxaad ka shaqaysaa? Waxay tahay anigu waxaan ahay dadka xoolaha intay maalgashadaan hadhow faa'iido badan ka helaa, waanan ku guulaystay, isku filaanshana waan gaadhay. Lacagtii baa loo sarrifay gabadhii, yaan hadalkeedin ku daaline. Waxaana la kala qortay taleefanadii. Waa la isxiriiriyey ilaa ugu dambeyn uu ka dhex dhashay meeshooda xidhiidh jacayl. Aad baa la iskaga helay. Waxaa dhacday in xidhiidhkii markii uu sii ballaadhay, la iswaraysto, qof waliba wuxuu haysto, hanti intuu leeyahay. Waxa uu sheegay Abu Khalid inuu isagu bangigiisan ka shaqeeyo, lacag fiicanna uu qaato, dee lacagtiisana inta reerkiisa iyo naftiisa ku baxda mooye intiisa kale meel dhigto. Iyaduna waxay tahay anigu haddaba sidaa ma aaminsani, xoogaaga lacagtaan helana kuma kalsoonaan karo, waa inaan maal gashadaa, faa'iido badanna ka helaayo cunaa. Abu Khalid aad buu ula dhacay gabadhan firfircoon. Wuxuuna yidhi wallahi waa wanaagsan tahay. Waxay tiri ka waran haddii aad 1 milyan igula samaysatid farmaysiyadan. Wuxuu yidhi waa caadi, 1 milyan iyo 1 milyan baa la dhigtay, farmaysi baa la samaystay. Farmaysiga waxa laga faa'iiday 2 milyan, qofkiiba 2 milyan buu helay. 1 milyan hadda waa maal gashadeen. Waxa dhacday inuu aad ugu farxay. Waxa la yidhi haddaba farmaysigii ka weyn waa in aynu maal gashanaa. Waa in qof waliba 2 milyan soo dhigaa. 2 milyan baa la soo dhigay. Qof walibana wuxuu helay lacag 4 milyan u dhiganta. Abu Khalid maasha Allah aad buu farxay. waxa la gaaray markii saddexaad waxay tiri aynu furana hadaba
yacni dhakhtar guud oo farmasiyadan oo dhan hoos tagaan. Wuxuu yidhi horta u kaadi degdega shaydaanka ayaa wax ku leh, bal ka waran haddii aynu isguursano maadaama aadan adna wax xidhiidha lahayn oo aad gabar tahay, aniguna aan nin dee reer hore ahay. Anigu waxaan leeyahay wiil iyo 2 gabdhood oo dee waa kanba Abu Khaalid la leeyahay. Dee waxaan doonayaa in aad aynu halkaa isku faataxaysano. Gabadha waxay tiri maasha Allah waaba si fiicane. Aduu waa la is aroostay 2 sano la is qabay. Waxaa la isku dhalay wiil iyo gabadh. Wiilkaa horeeyey, gabadhii baa dambeysay. Dee islaantiina waxaa hadba carabtu magaca qofka ugu weyn ayay raaciyaan hooyada Umu Faris baa la yidhi. Waxaa dhacday in ay tiri haddaba dee soo dhawow maadaama reerkiini batay adigu reer hore lahayd, dee waa in aynu maal gashanaa. Maxaa ku helay lacag 5 ilaa 6 milyan ah, waa inaynu maal gashanaa. Adna dee kanana waa keenayaa. Waayahay buu yidhi. Xaguu haddaba ka keenayaa Abu Faris maadaama xoolihii soo gabaabsadeen, reerihii bateen. Wuxuu yidhi anigu waxaan gacanta ku hayaa ma jirto, laakiin waxaan kaa mahanayaa bangiga. Bangigii baa maalin walba wax laga qaataa 500 oo riyaal. Maalin dhaaf markuu 500 iyo 500 riyaal noqdo 1000. Aduu waxaan kugu yidhi bangigii buu ninkii iska guray. Ninkii khasnajiga ahna maalin walba iskaga saxeexaa maadaama uu gudoomiyihii bangiga yahay. Waa qaataa, waa maalgeliyaa. Adigu waa sii guulaystaa ninkii. Wax la iibsaday farmasiyo, gawaari, guryo. Maqal jirta hebel cirka cabaar u jira. Ninku wuxuu noqday maasha Allah. Haddaba waxa mushkilad ah lacagtan uu iska guranayo ma celinayo ninkani. Doqoniina intuu ka qabado wuxuu leeyahay maxaa jeebkaygan bari maalayaa waxaasooba baan haystaa arbaaxa maxaa waxaas stresska ay ku gelinaya. Maalinkii dambe ayaa ilaa adduunka sidan si ahaan maayteed kale xoolahan uu iska guranaya xoolo bini'aadane. Maalinka dambe ayaa gudoomiyihii mulkiilayaashii bangigan waliba faracan ayaa wax la sameeyay kormeer dee lacagii in la eego. oo yani wixii hadii meesha musuqmaasuq ku jira iyo waxa la ogaaday lacag 7 milyan iyo badh riyaal ah in ay maqan tahay oo waliba bankiga daayif ku maqan tahay. Xisaabiyi baa loo yeeray saad wax tiri baa la yidhi. Wuxuu iga raali ahaada aniga miihi saxiixi gudoomiyuhu waa kan isaga qortay. Gudoomiyii baa loo yeeray. Maba naxsan ninkan Abu Khaalid oo soo baxayo maxay helay lacag 7 milyan iyo badh baa kugu maqan ka waran. Maxaa jira waa bixinaya 7 milyan iyo badh ka wax weyn baaba hada looga soo horeysiiyay. Ilaahay oo naxariistay gudoomiyihii markaa bangiyada hadeer caruurihiisa baa dhaxlay aad buu cadhooday. Warbixiska ka kaalayo yaa kugu yiri marka hore la bax. Yaa kugu yiri ilaahay ka dhigay 100 riyaal lacagtan lacagaad leedahay ma yaa kugu yiri la bax bixiskooda iska daayo. Booliskii iyo adigu waxa soo galay meesha xukuumadii. Abu Khaalid waxa loo gudbiyay jeelka. Abu Khaalid oday aad u wanaagsan buu ahaa. Wuxuu yiri bal haddii waxaas oo murana laga tago bal lacagtii ha keeno intii uu qaatay waxana wax kalena kama rabna intii uu qaato quraha keeno. Waxa la yiri keenta hadaba intii aad qaadatay Abu Khaalid muxuu ku jawaabay ma hayo wax lacaga. Haye waxay noqotay ma hayo wax lacaga la ka saarmayse in ninkii la xukumo oo maxkamadda arrinku wareego 5 sano lagu xukumay. 5 sano markii lagu xukumay sanadkii koowaad sanadkii labaad sanadkii saddexaad markii ay gaadhay ay waliba ahayd bil Ramadaan waliba aakhirkii bishii Ramadaan ayaa waxa is urursaday kooxo jamaaca asxaabtiisa iyo qaraabadiisa kamid ah waxayna u tageen gudoomiyihii ugu weynaa ee bangiyada lahaa oo waxayna ugu tageen magaalada Madiina guri weyn oo qasri ah
uu halkaa ku lahaa ilaahay u naxariisto waa dhintay ayay ugu tageen waxayna ku yidhahdeen warniyahow dee maadaama rabadaanna tahay ninkana nin aan hore khiyaamo loogu baran yahay waxaan doonaynaa inaad iska cafidid ilaahay dartii aad ku cafidid ninkana waa nin 2 xaas leh caruura leh caruurihiisa cid uma maqna dee fadlan cafi mudane odaygu wuxuu yidhi waa iska tagaa habeenkii 27 rabadaan 2006 ayuu odayga cafiyey wuxuu yidhi cafis iyo saamax buu iga yahay 3 sano halkiisa ha iska soo baxo 2 sano u hadhay waan ku cafiyey waxa kama rabo waxa dhacday in uu Abu Khalid soo baxo Abu Khalidow lacagtan markii hore waad helaysaa inaad bixisid laakiin wax badso wax beel bay dhashaaye wuxuu islahaa 5 sano aad iska maqnaatid xoolahaaga kuusii dabal garoobay oo kuusii batay u soo bax adoo raaxaysanaya adduunka ku nool 5 sanana ciqaab ku noqoto maxay lacagtii aad haday wuxuu tagay xaaskiisa hore Umu Khalid waa iskala joogay habeenkii waa iska farxayno habeenkii labaad wax la soo gaaray inuu Faris gabadhii hawlahan oo dhan iyo arbaaxdan lahayd in loo tago gabadhii isbedel baa ku dhacay gabadhii maaha waa naxsan tahay ma moodayso ninkan inuu 3 sano ku soo bixi lahaa markaasuu maxaa ku helay aniguna waxaan doonayaa in xoolay noo sii dhalaan salacan nabi lacagtii keeno nakeen waxa tiri soo dhawow ma doonayn jeelka dhexdiisa inaan xarig iyo naxtin isku ka dare laweyn khasaaray lacagtii adigu wuxuu inuu khasaarnay way naqsada wax la khasaaray tiri sida ugu guuleysanaysay ayaan kana u khasaarnay guri anaana de lacagta ku qornaa deeyma ay nala ku yeeshay waa iibiyay wixii farmasi iyo maxay tahay isbitaal weyn iyo wixiiba waa iibiyay wixii gawaadhiha waa iibiyay wixii guriyahana waa iibiyay ninkii aad buu cadhooday wuu ka tegay wuxuu dabagal ay sameeyay wuxuuna ogaaday inay gabadhani tuuga tahay oo aanay waxay khasaartay jirin xooli oo dhan iibsay lacagtiina bangiga ka shubatay salacan nabi waajibkiisa la mariyay xoolo binaadan buu cunay isagana naagtiisa waa 10 u dhigtay xaaskiisa weynayd buu yimi wuxuu yiri anigu kira aan bixiyo ma awoodo amaan yani le aamino waa khasaaray xoolahayga waa khasaaray sharaftayda iyo sumcadaydina waa khasaaray waa in aan tagaa oo aadaa magaalada Riyaad inagoo wada socona halkaas aan ku lahaa meel yar shaqo way guriga yar 2 qol ama qol iyo kajada iyo maxay tahay fadhigan iyo waxaan isku samaysan hal suule halkaas inaan kala bixinayn halkaas in tagayna hay'abo yiri waa tageen Riyaad bay aadeen wax yar markii joogeen maalin maalmaha kamid maxay tahay gabadhii hadda kale Umu Farisna Riyaad bay joogtaa ogow wuxuu aaday gurigiisii kale ee Umu Faris wuxuu arkay caruurtiisii oo iskuulka u diyaar garoobaysa waa labadii Umu Faris u dhashay Faris iyo gabadhii shaqaaladii iyo labadiis caruur ahayd wuxuu ku xiray qol wuxuuna soo qaatay qoray waliba qorayada dhaadheer ee ugaarsiga wuxuuna ku tiriyay ilaa ay naftu ka baxaysay Umu Faris halkii Umu Faris ku dhimatay isaga baa la soo qabtay 2 sano waa iswaalwaalo wuxuu yiri yani waa waalanahay ilaa ugu dambeyntii laakiin la ogaaday inuu ninkani caadi yahay halkaas waxa lagu xukumay jeel inuu ku jiro inta noloshiisa ka dhiman Umu Faris halkaas ku dhimatay iyada iyo xoolihii xaaraantay ninkan ka dhacday iyo wixii bangiyadii isagii halkaas sumcadiisii xurriyadiisii sharaftiisii dambi korka iska saaray nin dhan oo maamule ka bangi xasbunallahu wa ni'mal wakiil maxayna ka faa'iideynaa qisadan wax badso wax beel bay dhashaa adar hadii Ilaahay xoogaa ku nimceeyo alxamdulillah yani dheeraad si doondoonin wixii Ilaahay ku qoray waa ku imanayaan ورجينا نتكاش قصة channel subscribe صار قبل الكفرة في ذي أنا لك السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.